kusoo dhow barnaamijka Connected Case daawada waad ku mahadsan tahay daawashada iyo ku xidhnaanshiyaha iyo la socoshada aad la socoto barnaamijka Connected Case muuqaalada aan soo gelin bartaan ku leenahay YouTube-ka iyo qaybo kamida baraha bulshada sida Facebook-ka, Instagram-ka iyo Twitter-ka. Barnaamijka waxaan ku wadaagnaa arrimaha ganacsiga ee ka hadalka u baahan sheekooyinka saameynta leh iyo ganacsiyada Soomaalida ee istaahila in la baahiyo. Sidoo kale barnaamijka waxaan ku wadaagnaa xogo aan u aragno in ganacsiga iyo ganacsadaha ay faa'iido u tahay oo lagu horumarin karayo ganacsiga ama lagu saxi karayo qaladaado ama carqalado oo ganacsiga la kulmo. barnaamijka maanta waxaynu kaga hadli doonaa laba arrimood oo si isugu dhow aadna dadkeena isugu qaldaan gaar ahaan ay ganacsado inay aad u kala saarin. labada arrimood waxay kala yihiin suuqgeynta iyo xayeysiiska. suuqgeyntu maxay tahay, xayeysiiska muxuu yahay, labadoodana maxaa loo sameeyaa baan barnaamijka ku wadaagi doonaa. waxaan ku horeynayaa suuqgeynta. maxay tahay suuqgeyntu? suuqgeyntu waa habka lagu gaarsiinayo ama lagu ogeysiinayo macmiilka adeeg ama alaab uu ganacsigu hayo, laguna dareensiinayo in macmiilka adeega ama alaabta uu ganacsigu haya ay buuxinayso baahi uu isagu qabo. si kale haddaan u nidhaahno, suuqgeyntu waa xirfadda ama waa baadhista ama waa qaabka lagu ogaan karayo baahida suuqa ka jirta waxa ay tahay. si kooban haddaan u sheegno, shaqada suuqgeyntu waxa ay tahay waa 4 arrimood: cilmi baadhis iyo xog raadin oo qodobka koowaad, qodobka labaad oo ah ka dhaadhicinta macmiilka adeega ama alaabta uu ganacsigu hayo, qodobka saddexaad oo ah ogaanshiyaha baahida suuqa ka jirta inta ay leegtahay iyo sida loo dabooli karayo, qodobka afraadna wuxuu noqonayaa soo bandhigidda iyo gaarsiinta adeega ama alaabta uu ganacsigu hayo. hadda waxaan u geli doonaa muxuu yahay xayeysiis. xayeysiisku waa xirfadda aad ku gaarsiin karto macmiilka adeega ama alaabta uu ganacsigu hayo iyo halkaad u marin lahayd, kanaalka aad u sii dhex marin lahayd. tusaale ahaan, ma TV baad uga sheegaysaa, ma radio buu ka dhagaysanayaa, ma joornaal buu ka akhrisanayaa, mise wuxuu ka daalacanayaa baraha bulshada qaybaheeda kala duwan. marka xayeysiis la sameynayo 5 arrimood baa muhiim noqonaya. 5 arrimoodna waxay kala yihiin: ka koobaad, fidinta ama gaarsiinta macmiilka adeega ama alaabta uu ganacsigaas hayo; qodobka labaad, kor u qaadida magaca iyo muuqaalka ganacsiga oo lagu gaarsiinayo macmiilka; qodobka saddexaad, haddii ganacsigu uu soo kordhiyey adeeg cusub ama uu alaab cusub keenay, in lagu gaarsiiyo oo lagu ogeysiiyo macmiilka; qodobka afraad wuxuu noqonayaa inaad macmiilka ku barto hab isticmaalka adeega ama alaabta uu ganacsigu hayo; qodobka shanaadna wuxuu noqonayaa inuu ganacsigu sameeyo qeyldaan joogto ah, taasi oo mar walba kusoo noqonaysa maskaxda iyo maanka macmiilka. qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka kusoo gabagabeynaa waxa weeyaan, maxay muhiim u tahay in ganacsigu lahaado qayb suuqgeyneed uuna sameeyo xayeysiis. 3 arrimood baynu kusoo koobi karaynaa. arrinta koowaad waxa weeye in macmiilka la ogeysiiyo ganacsigani adeega ama alaabta uu hayo. qodobka labaad waxa uu noqonayaa in macaamiisha loo soo bandhigo ama lagu baro adeega iyo alaabta ay hayaan, adeega ama alaabta uu ganacsigu bixinayo sidee buu uga wanaagsan yahay la tartamayaasha suuqa ku jira. qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan in macmiilka loogu sheego adeega aynu hayno ama alaabta aynu haynaa sidee bay u buuxinaysaa baahidiisa oo uga jawaabaysaa waxa uu macmiilku u baahan yahay. 3 qodob waxa weeyaan muhiimadda ay leedahay in suuqgeyn la sameeyo ama in xayeysiis la sameeyo. aad baad u mahadsantiin, waan idinka mahadcelinayaa sida tooska aad ugu xidhantiin.